حسن شيخ محمود مدحوينها شرعي الدرادة كجوغا فيلا سوماليا ayaa magacii iyo qarannimadii Soomaaliyeed ka iibsaday Imaaraadka Carabta isagoo ka difaacay fadhiga qaramada midoobay horay waxa uu sheegi jiray Imaaraadku inuu yahay cadawga Soomaaliya isagoo Dani iyo Puntland ku eedeyn jiray madaxweynaha sharci darrada ku jooga villa Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ceeb caalami ah kala kulmay fadhigii qaramada midoobay oo dadka Soomaaliyeed ay daawanayeen kulan degdeg ah oo ay qaramada midoobay iskugu yeereen Imaaraadka Carabtu laguna cambaareynayay weerarada Imaaraadka Carabtu ay kala kulanto Iran ee droniska ayaa waxa kulankaasi soo dhaweeyay wadamo ay ka mid yihiin Mareykanka, Israel iyo sidoo kale Imaaraadka oo kulankan soo qaban qaabiyay dhanka Soomaaliya Abuukar Baalle oo Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ayaa iska diiday ka qaybgalka kulanka Imaaraadka Carabtu ay iskugu yeertay qaramada midoobay Abuukar Baalle waxa uu sheegay in sidaan oo kale kulan degdeg ah Soomaaliya ay iskugu yeertay qaramada midoobay taasi oo lagu cambaareynayay faragelintii Israel ee waqooyiga Soomaaliya ayna wadamo kamid ah Carabtu iska diideen oo uu ku tilmaamay Bahrain iyo sidoo kale Imaaraadka wuxuu sheegay in aysan Soomaaliya kulankan ka qaybgalay sidoo kalena ay Soomaaliya maanta aarsanayso dhabarkana ka tooganayso Imaaraadka Carabta wuxuu sheegay in Soomaaliya ay tusayso awoodeeda iyo in sidii shalay ay u diideen oo kale Soomaaliyana ay u diidayso ka qaybgalka kulanka degdega ah ee Imaaraadka Carabtu uu iskugu yeeray qaramada midoobay laguna cambaareynayo Iran weerarada droniska ay ku soo qaaday Imaaraadka Carabta intaasi kadib safiirka Soomaaliya u fadhiya Imaaraadka Carabta ayaa qadka telefoonka si degdeg ah ugu wacay Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha sharci darrada ku jooga villa Soomaaliya daqiiqado kooban oo ay wada hadlayeen waxa uu sameeyay ballanqaad lacageed haddii ay ka qayb galaan kulanka qaramada midoobay ee degdeg ah ee Imaaraadku uu iskugu wacay ayna cambaareeyaan Iran Xasan Sheikh Maxamuud ayaa qadka telefoonka ku wacay Abuukar Baalle oo Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay isagoo u sheegay inuu ka qayb galo kulanka degdeg ah ee Imaaraadku uu iskugu yeeray qaramada midoobay isla markaasina door muhiim ah uu ka qaato Abuukar Baalle Xasan Sheikh Maxamuud waxa uu la wadaagay in sidaan oo kale kulan degdeg ah Soomaaliya markii ay iskugu yeertay qaramada midoobay laguna cambaareynayay faragelintii Israel ee Soomaaliya ay Imaaraadka Carabtu iska diideen haatanna Soomaaliya ay haysato boos ay ku argoosan karto balse Xasan Sheikh Maxamuud waxa uu la wadaagay una sheegay Abuukar Baalle in Imaaraadku uu ballan qaaday lacag u baahi badan u qabay isla markaasina waxa uu Abuukar Baalle dul dhigay amar ah inuu ka qayb galo kulankaas isagoo ku hadlaya afka muslimiinta iyo sidoo kale afka Carabeed una sheego halkaasina uu ka cambaareeyo Iran dagaalada iyo sidoo kale weerarada droniska ay ku qaaday Imaaraadka Carabta Abuukar Baalle oo dawladiisu ay amar dul dhigtay ayaa ka qayb galay kulankaasi cambaareeyayna weerarada droniska Iran ay ku qaadayso Imaaraadka Carabta waxa ceeb iyo la yaab ah Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha sharci darrada ku jooga villa Soomaaliya iyo sidoo kale alifleyda siyaasadeed ee garbihiisa taagan in ay Imaaraadka Carabta ku sheegi jireen cadawga Soomaaliya haddana ay ka daafacayaan fadhiyada qaramada midoobay Dani iyo Puntlandna ku eedeyn jiray in ay la shaqeynayaan Imaaraadka Carabta oo cadawga Soomaaliya haddaba Xasan Sheikh Maxamuud miyaa shalay been sheegay mise lacagta ayaa bedeshay